halkaani waxaa ka dhacaya dagaal u dhaxeeya laba boqortooyo. labada boqortooyo mid kasta waxa uu la yimid ciidan tiro badan. labadii boqortooyo markaan iska hor yimid mid ka mid ah waxa uu yiri waxa ku wanaagsan inaad halkaani iskaga tagto. boqorkii kale wuxuu yiri uma imaan inaan halkaani dib u laabto ee waxaan kuu sheegayaa inaad ii shaqayn doontid hadda iyo wixii ka dambeeya. boqorkii kale wuxuu yiri okay aan tijaabino askarta, halka boqorkii kale ku yiri ha ilaawin inaad dooratid askariga kugu fiican ciidankaaga. askariga guulaystay boqortooyadiisa ayaa guulaysan doonta. wuu aqbalay oo u yeeray mid ka mid ah askartiisa ugu wanaagsan. markuu yimid wuxuu u muuqday mid awood badan. boqorkii kale markuu arkay waxa uu askartiisa uga dhex yeeray magaca Achilles. ma jirin qof ka soo baxay ciidankii, sidaa darteed qof walba waxa uu bilaabay inuu ku mujaajiloodo. boqorkiina wuxuu yiri askarigaagu wuxuu ka cabsaday askarigayga, halka boqorkii kale uu yiri adigoon arkin baa hadlaysaa, horta marka hore ila arag. Achilles ayaa goobta yimid. hadda dagaalkii wuu bilaabmay. Achilles wuxuu dilay askarigii weerarkii ugu horeeyay. waxa uuna ku qayliyay inuu halkaani joogo yaa raba inuu ila dagaalamo, laakiinse qofna ma rabin inuu ka hor yimaado. boqorkii kale oo guul daraysay waxa uu fahmay inuu wax walba ku wareejin doono boqortooyadan. hadda goobta ayaa isbedeshay. waxaan aragnaa boqortooyo kale oo la yiraahdo Troy. boqorkaasi waxa uu lahaa laba wiil, mid ka mid ah waxaa la oran jiray Hector, halka kan kalena uu ahaa walaalkiisa ka yar. Hector waxa uu ahaa dagaalyahan khatar ah sida Achilles oo kale. hadda waxay rabaan inay heshiis la sameeyaan boqortooyada kale. marka Hector iyo walaalkiisa waxay u tagaan ciidankii, si fiican ayay u martigeliyeen. waxa ayna ku quudiyeen noocyo badan oo cunto ah. xaaska boqorkan ahna boqorada waxay ahayd mid aad u qurux badan oo da'yar. uu guda jiray waqtigan Hector walaalkiisa ka yar waxa uu bilaabayaa inuu jeclaado. markii la gaaray waqtiga bixitaankooda Hector walaalkiisa ka yar waxa uu soo afduubtay boqoradii. Hector arrinka dhan waxba kama ogeyn, laakiin walaalkiisa ayaa u sheegay sheekada oo dhan. Hector aad buu u canaantay walaalkii, waxaanu u sheegay inuu dagaal cusub uu abuurayo. waxa uuna go'aansaday inuu boqorada u celiyo oo cafis ka dalbado. walaalkiisa wuxuu ka yiri ma ogolaan doono inaad tan samaysid. Hector waxba ma samayn karo, waxa uuna ku qasbanaaday inuu aqbalo walaalkii. boqorkii markuu ogaaday in la khiyaamay wuxuu yiri ma cafin doono iyaga. hadda ayuuna bilowday dagaalka iyo cadowtinimada boqortooyada. walaalkiisa ayaa ku yiri waan ku garab taaganahay dhab ahaantii. isagu wuxuu doonayay inuu maamulo boqortooyada Troy. waxa ayna rabeen inuu dagaalka ku soo biiro Achilles. markay weydiisteenna wuu diiday. habeenkii boqorku wuxuu qorsheynayaa sidii loo weerari lahaa boqortooyada. nin halkaasi joogay ayaa sheegay inaysan macquul ahayn dagaalka Achilles la'aantii. wuxuuna ku yiri ka fiirso inaad u yeedhid, isagu wuxuu noqon doonaa dagaalyahan weyn. boqorkii waxa uu nin u diray Achilles. waxa uuna Achilles ninkaana u sheegay inay tahay arrin sharaf leh, kanina wuxuu noqon doonaa dagaalkii ugu weynaa haddii aad nala dagaalanto. dadkuna weligood way ku xasuusan doonaan. taasina waa waxaad rabto. Achilles isaguna wuu rabay, laakiin wuxuu ka walwalsanaa inuu tan maqlo. waxa uu u tagay hooyadii si uu talo uga raadiyo, si ay ugu sheegto inuu noqon doono dagaalyahan khatar ah. waxay u sheegtay qofna ma oga mar haddii aad baxdo inaad soo noqon doonto iyo in kale, laakiinse haddii aad ku dhibato dagaalkan waxaad bulshada ka dhex noqonaysaa mid geesi ah. kadib dadkii ayaa bilaabay inay ku sharaacdaan maraakiibtooda iyaga oo isku diyaarinaya dagaal. kadib waxaan aragnaa Hector oo u socday aabihii ahna boqorka boqortooyada Troy. waxa uuna yiri waa inaan boqorka u celinaa xaaskiisa ka hor inta aysan wax xuni dhicin. dhammaanteenna waa nala dili doonaa. boqorkiina waxa uu sheegay inuusan rabin inuu qof qalbigiisa jabiyo. Hector waxa uu sheegay in ay wanaagsan tahay in hal qof qalbigiisa la jebiyo intii kumanaan askari ah halkaasi lagu dili lahaa, laakiinse boqorkaasi ma
ogolayn inuu dib u celiyo. Hectorna wuxuu lahaa waxay halkaani la imaan doonaan ciidan aad u badan weynana dili doonaan. Boqorkii Troy wuxuu yiri wiilkaygiyo qofna ma awoodo inuu itaabto ilaa hadda, sababtoo ah derbiyadeenu aad bay u sareeyaan, marka ha ka welwelin. Hector wuu welwelsanaa sababtoo ah wuxuu ogaa in ay mustaqbalka dhibaato keeni doonto. dhinaca kale waxaan aragnaa boqortooyadii kale oo u soo socota si ay u weeraraan ciidamada boqortooyada Troy, laakiinse waxay hortooda ku arkeen markab kale oo badda ka fog. waxay ogaadeen inuu wato Achilles. boqorkii wuxuu yiri muxuu halkaani u yimid? Achilles gudaha ayuu galay oo wuxuu bilaabay inuu keligii la dagaalamo. markii la arkay waxqabadkiisa, qof kasta oo doonta saaran ayaa waxay bilaabeen inay ku dhawaaqaan magaciisa iyaga oo ku faraxsan. Achilles ayaa wax walba ku soo qarbuday gudaha, laakiin Hector ayaa halkaasi yimid. wuxuu ku yiri Hector, anigu kula dagaalami maayo, dagaalku wuxuu bilaaban doonaa berito. kadib waxaan aragnaa Achilles oo soo galay teendhadiisa. waxaa halkaasi ku barooranaysay haweeney iyada iyo dad kale. runtii waxay ahayd Hector in adeertii. waxay ku tiri dadkeenna ayaa dishay, waanu kaa aarsan doonaa. Achilles ayaa u soo dhowaaday oo weydiisay inay ka baqayso isaga. waxay tiri maya, anigu adiga kaa baqi maayo. Achilles waxa uu fahmay inay tahay gabar fiican sida iska cad. iyadu waxay ahayd qoyska boqortooyada maadaama ay tahay Hector in adeertii. Achilles waxba ma oran oo u tagay boqorkii. boqorkii wuxuu ku yiri dadku way ku xasuusan doonaan dagaalka aa ku guulaysatay awadeed. tani waa boqortooyadayda, aniga ayaana boqorka ah. haddaba maxaad caqli u muujisay oo markii hore keligaa u baxday? waxa uuna boqorkii amar ku baxshay in loo keeno gabadhaasi. waxay ahayd gabadhii Achilles u xirneed, si adag ayaa loo keenay. Achilles wuu xanaaqay oo weeraray iyadii. waxay tiri ma rabo in qof loo dilo aniga daraaday. marka Achilles waa iska aamusaa. boqorkii markuu taa arkay waxa uu tagay gabadhii oo ku yiri caawa aniga ayaa ii adeegaysa. marka uu tan maqlayna Achilles isagoo caraysan ayuu iskaga soo tegay. waxaan aragnaa Achilles oo meel fadhiya. askartii gaarka ahayd ayaa u yimid oo ku yiri isa soo diyaari, waa inaan dagaal ka galnaa. Achillesna wuxuu yiri anigu ma doonayo inaan dagaalamo. subaxdii dambe Hector iyo walaalkii ayaa ahaa hogaamiyaasha kooxda. boqortooyadii kalena way timid, waxaana hogaaminaya labadii walaalaha ahaa. waxa uu Hector u sheegay in walaalkii ka yar uu jecel yahay xaaskiisa. boqorkii kale ku yiri aan bilowno dagaalka dhexdeena, kii dagaalka ku guulaystana ayaa la wareegi doonaa. boqorkii waxa uu walaalkii ku codsaday inuu dilo wiilka ka yar ee Hector si aanu u qabsano boqortooyada. dagaalka u dhexeeya walaalka Hector iyo boqorkii ayaa bilowmay. si xun bay u dagaalameen. boqorkaasi waxa uu ku sigtay inuu dilo walaalka Hector. marka Hector baa yimid oo soo badbaadiyay naftiisa. waxa uuna halkaasi ku dilay boqorkii. boqorka walaalkii ayaa codsaday askartiisa inay weeraraan. dhammaan askartii waxay bilaabeen weerarkii. Achilles oo ka maqnaa iyagii waa la jebiyey. askar badanna ayaa halkaasi lagaga dilay. dhammaan askartii way cabsadeen oo waxay yidhaahdeen waxaan halkaani u nimaanay inaan soo dayno xaaska boqorka. haddaba maadaama boqorkii uu dhintay, marka muxuu dagaalku faa'iido oo leeyahay? boqorka walaalkii waxa uu gabadhii u dhiibay askartiisa. gabadhu waa Hector in adeertii. waxa ayna ula dhaqmeen jirdil iyo dhaqan foolxun. marka Achilles baa goobta yimid oo dilay kii dhaqanka xumaa oo soo geliyay gabadhii teendhadiisa. waxa ay bilaabeen inay wada hadlaan. gabadhaasi waxay tiri waxaan u malaynayaa inaad naxariis daran tahay, laakiinse qalbi naxariis leh ayaad leedahay. hadda waxaan aragnaa Achilles oo hurda. gabadhii ayaa u timid si ay u disho. indhaha Achilles way xirnaayeen, laakiinse waxa uu ahaa mid feejigan. waxa uuna ku yiri idil. iyadu waxay tiri haddaana sidaani yeelin waxaa sidoo kale idili doona dadka kale. marka maxaan sameeyaa? Achilles wuxuu yiri haddii aad marba go'aansato inaa idishad haba ka labalabeen, laakiin iyadu ma dilayso isaga. way cafisay. wuxuuna ku yiri anigu hadda ma weerari doono boqortooyadaada. habeenkii askartu waxa ay si qarsoodiya u weerareen boqortooyadii Troy. Hectorna wuxuu sheegayay inay xun tahay in habeenkii
la dagaalamo. Achilles adeerkii ayaa dagaalka ku jiray. Marka Achilles ba u yimaada waxa uuna ku yiraahdaa ha tagin dagaalka. Laakiinse Achilles kuma raacsaneen adeerkii. Marka adeerkii waxa uu xiranayaa dharkii Achilles. Wuxuu sidoo kale qaadanayaa gaashaanka iyo seeftiisa. Waxa uuna askartii weydiinayaa inay bilaabaan dagaalka. qof kasta waxa uu u maleynayay Achilles oo bilaabayay inuu raaco isaga. markuu ka hor yimaado Hector waxa uu dilay ninkii ku qalabaysanaa dharkii Achilles. Hector aad buu u farxay. waxa uu u maleynayay inuu dilay Achilles laakiin wuxuu ogaaday inuu adeerkii ahaa. markuu Achilles tan maqlo waxa uu go'aansanayaa inuu dagaal ka galo. waxa uuna tagayaa banaanka qalcadda boqortooyada Troy. waxa uuna bilaabay inuu u waco Hector. aad bay u dagaalamaan. Achilles ayaa ku dilay halka. dabadeedna waxa uu bilaabay inuu meydkiisa jiito. habeenkii Hector aabihii ayaa halkaas yimid oo dalbaday meydka wiilkiisa. Achilles wuxuu yiri miyaada ka baqayn inaan adigu ku dilo. wuxuuna ku yiri maxaad u malaynaysaa in aabbuhu weli u baahan yahay inuu dhinto mar haddii wiilkii ka yaraa dhintay. Achilles waxa uu siinayaa meydkii. qof kasta wuu murugooday maadaama Hector uu ahaa dagaalyahan weyn. Achilles waxa uu boqorka siinayaa 12 maalmood oo waqtiya si ay u nastaan. wuxuu kaloo sii daayay Hector in adeertii. waxa uuna ku yiri 12 maalmood idinkuma soo duuli doono. marka uu boqorkii tan maqlay wuxuu yiri sidee waxaan u samayn karnaa ogolaansho la'aan. 12 maalmood ka bacdi boqorkii Troy iyo raggii oo dhami dibadda ayay u soo baxeen. inna halkaasi kama ay helin. waxay halkaasi ku arkeen faras alwaax ka samaysan. hortiisana waxaa jiifay rag meyd ah. boqortooyadii Troy waxa ay sheegeen inay weerareen goobaheena diimeed. sida awgeed waxa ay la kulmeen ciqaabtooda. waxay u maleynayeen in qof walba la dilay qaarna ay baxsadeen. waxa ay qorsheynayaan inay gudaha geliyaan faraskan maadaama goobahooda diimeed la burburiyey. gudaha ayay soo geliyeen wayna ku farxeen. waxayna moodayeen inay ku guulaysteen dagaalka. sababtoo cidna halkaasi kuma arkin. habeenkii waxa ay seexdaan iyaga oo taxadar la'aan ah. laakiinse farasku ma aha mid maran. waxaa ku jiray Achilles iyo qaar ka mid ah askartiisa. boqorkiina sidoo kale waxa uu ka daawanayaa banaanka qalcadda isaga iyo askartiisaba. habeenku markuu dhacay Achilles ayaa ka soo baxay faraskii oo furay dhammaan albaabada qalcadaha boqortooyada Troy. askartii oo dhanna waxa ay soo galeen gudaha boqortooyada. waxa ayna halkaasi ku dileen qof kasta. halka waxaa lagu dilay boqorkii boqortooyada Troy. Hector in adeerkii boqorkaasi ayaa bilaabay inuu kula dhaqmo dhaqan xun. gabadhaasi ayaa Troy la soo baxday oo dishay. askartii ayaa u soo dhaqaaqay si ay gabadhaani u dilaan laakiin Achilles ayaa yimaaday oo halkaasi ku dilay. Hector walaalkii ka yar ayaa yimid. waxa uuna fallaar la helay cagta Achilles. cagta ayay ka muddaa. Achilles ayaa soo kacay si uu u dilo laakiin Hector walaalkii ayaa fallaaro badan ku tuuray. Achilles waxa uu noqdaa mid daciif ah. halkaas ayuu ku dhacay. Hector in adeertii ayaa ka mamnuucday inuu tan sameeyo iyada oo dhahaysa ha dilin laakiin ma maqlo. Achilles wuxuu gabadhii ku yiri waxaa fiican inaad isaga raacdo sababtoo ah boqortooyada Troy oo dhan waa la burburiyey. Achillesna halkaas ayuu ku dhintay. waxaan halkan ku aragnaa Achilles oo la gubayo. filinku waxa uu ku dhamaanayaa murugadan. waa ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan haddaad ku cusub tahay madasha Mr. Ducaysan ha ilaawi subscribe-ta. sidoo kale follow soo Facebook rasmiga ee Mr. Ducaysan. mahadsanid.